kulanti wacan daawadiil ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 24ka bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaafiic lagu garaacay madaxtooyada Soomaaliya iyo qasaare culus oo ka dhashay dawladda Qatar oo iibsatay saamiga shirkada shidaal ka qodo meel u dhow xadka Soomaaliya Puntland oo bilowday olole ka dhan ah Qatar shaacineysana baaritaanka dilkii Farmoosa oo ah madaxii shirkada DP World ee magaalada Boosaaso xildhibaano iyo wasiiro hotelka ay deganaayeen looga saaray amar al-shabaab ka soo baxay yaa ku guuleysan kara loolanka doorashada Jubbaland Axmed Madoobe mise Villa Soomaaliya warbixin muhiim ah oo xoga xasaasi ah xambaarsan ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyo madaxweyne Farmaajo oo la wareegay ciidan cusub oo tababar caalami ah ka helay dal ajnabi ah intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan warar la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiyaal la beegsaday meelo aan ka fogeen madaxtooyada Soomaaliya oo ay kamid yihiin iskuulka 50 May iyo dhismayaal ay degan yihiin siyaasiyiin joogto hoobiyaasha ayaa waxa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir duhurnimadii maanta iyagoo ku dhacay sida la sheegay qayb ka mid ah degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ilaa iyo hadda ma caddayn wax khasaare ka dhashay weeraradan oo goordhaweed ka dhacay Muqdisho waxaana sidoo kale wali ka hadlin hoobiyaashan mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya al-shabaab ayaa inta badan madaafiic ku garaaca madaxtooyada Soomaaliya iyo deegaanada ku xiran waxaana dhibaato badan ka soo gaarta dadka rayidka ah ee halkaasi degan deegaanada ku xiran madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa degan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo u badan wasiiro xildhibaano gudoomiyaal iyo waliba saraakiil ciidan dhinaca kalena dawladda Qatar ayaa iibsatay saamiga shirkada shidaal ka qoda meel u dhow xadka Soomaaliya shirkada Qatar Petroleum ayaa sheegtay in heshiis ay la gashay shirkadaha ENI iyo Total si ay saami 25% ugu yeelato sahminta 3 baloog oo ku yaala Lamu oo ah gobol dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya Qatar ayaa waxa ay saamidan 13 ilaa 75 ka iibsatay shirkada ENA halka ay 11 ilaa 5 ka iibsatay shirkada Total waana 3 baloog oo ku yaala Lamu goobta heshiiskan lagu saxiixay waxa joogay Saciid Alqaabi oo ah wasiiru dawlaha wasaaradda tamarta ee Qatar ahna madaxweynaha shirkada Qatar Petroleum waan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano heshiis sidaal qodis oo xeebtan Kenya ah waxaana ay sii adkeynaysaa inaan ku sii siqno Afrika sidaasi waxa yiri Alqaabi balogyadan oo kala ah L11A, L11B iyo L12 ayaa ku yaala sida la sheegay Lamu oo ah bariga Kenya waxaana ay ku fadhisaa 15,000 oo kiiloomitir oo isku weer ah xagga moolkana waa 1,000 ilaa 3,000 oo mitir heshiiskan ayaa waxa uu u baahan yahay inay ansixiso dawladda Kenya si uu u dhaqan galo geesta kalena Puntland ayaa bilowday olole ka dhan ah dawladda Qatar shaacineysana baaritaanka dilkii Farmoosa madaxtooyada maamulka Puntland waxay war-saxaafadeed ka soo saareen qoraalkii lagu soo daabacay wargeyska The New York Times bishan July 22keedii kaas oo lagu soo bandhigay cod laga duubay danjiraha Qatar u jooga Soomaaliya Ambassador Xasan bin Xamza Hashim iyo ganacsade lagu magacaabo Khalifa Kayid Al-Muhannadi oo aad ugu dhow amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani qoraalka uu maamulka Puntland ka soo saaray arintaasi ayaa lagu muujiyay inay ku soo baraarugeen walaaca warbixintaasi oo hal ku dhig looga dhigay qoryo kaash iyo argagixiso dawladaha gacanta oo ku hardamaya awoodda ee gudaha Soomaaliya Puntland waxay tilmaamtay inuu maqaalkaasi faahfaahiyay cod laga duubay danjiraha Qatar iyo ganacsada Al-Muhannadi bishii May 18keedii kaas oo ay kaga wada hadleen qaraxii gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay maxkamadda Boosaaso bishii May 11keedii sanadkan qoraalka Puntland waxay sheegtay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen 8 qof oo Soomaali aan waxba galabsanin iyadoo ay kooxda Daacishta Soomaaliya sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi bishii May 12keedii qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo ku qornaa luqadda Ingiriiska waxa lagu xusay in Puntland sanadihii la soo dhaafay dagaal ay kula jireen koox ay ugu yeereen argagixiso kuwaas oo lagu eedeeyay inay dilal la beegsadaan dadka rayidka hogaamiyaasha ganacsatada ee caanka ah iyo guud ahaan saraakiisha dawladda Puntland gaar ahaan
kuwa ku sugan hareeraha iyo gudaha magaalada dekeda leh ee Boosaaso oo ah xarunta ugu weyn ganacsiga dowladda Puntland ee Soomaaliya. Qoraalka waxaa lagu xusay in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ugu baaqay guddiga fulinta iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay qaadaan baaritaan ku aadan eedeymahaasi khatarta leh isla markaana ay Puntland diyaar u tahay iskaashi buuxa iyo inay taageeraan horumarka baaritaan kasta. Qoraalka waxaa kaloo lagu muujiyay inay dowladda Puntland sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo saari doonto faahfaahinta dheer ee baaritaankooda qaaska ee ku aadan weerarada argagixiso ee ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso oo ay ku jiraan dilkii lagu qaarijiyay maareeyayaashii shirkadda BO ee gacanta ku haysa dekeda magaalada Boosaaso bishii February 4 ee sanadkan 2019. Ugu dambeyntii qoraalkii ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa lagu cadeeyay inay ka go'an tahay in loo midoobo dimuqraadiyad iyo federaalka Soomaaliya iyo in nabad iyaga dhexdooda ku wada noolaadaan iyo dalalka deriska iyo caalamka oo dhan. dhinaca kalena xildhibaano iyo wasiiro hotelka ay deganaayeen looga saaray amar ka soo baxay Al-Shabaab. Maamulka hotelka Suubiya ee ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle ayaa soo saaray amar hotelka looga mamnuucayo xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabeelle. Hotelkan oo ku yaala faras magaalaha Jowhar gaar ahaan xaafadda Holwadaag ayaa aad ugu dhow xarumaha maamulka Hirshabeelle gaar ahaan xarumaha madaxtooyada baarlamaanka iyo xarunta maamulka gobolka. xildhibaanada wasiirada iyo shaqaalaha kale Hirshabeelle ayuu hotelkan deegaan u ahaa waxaana lacagta bil walba lagu dalaci jiray maamulka Hirshabeelle. xildhibaanada iyo wasiirada oo qaar ka mid ah la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay arintan waxaana albaabka hotelka lagu soo dejiyay amar ah inaysan degi karin shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta Hirshabeelle hotelka Suubiya. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka dambeeyay arintan waxaana ay amar siiyeen milkiilayaasha hotelka iyagoo u qabtay muddo kooban in hotelka looga guuro ama ay soo weerari doonaan. qaar ka mid ah maamulka hotelka oo aan la hadalnay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo waceen hotelka isla markaana ay amar ku bixiyeen in si degdeg ah hotelka looga saaro wasiirada iyo xildhibaanada ama ay ku soo qaadi doonaan weerar isugu jira dagaal iyo qaraxyo. Al-Shabaab ayaa horey u weeraray hoteelo iyo goobo kale oo ganacsi waxaana weerarkii ugu dambeeyay uu ka dhacay hotelka Cascasey ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. weerarkaasi waxaa ku dhintay 30 qof oo shacab ah waxaana ku dhaawacmay 60 qof oo kale. markana Jubbaland yaa ku guuleysan kara loolanka adag ee doorashada Jubbaland, Axmed Madoobe mise Villa Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay ciidankii ugu badnaa ay geyso magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland oo lagu wada in bisha Agost ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulkaasi. musharaxiin badan ayaa walwal ka muujinaya hanaanka iyo habraaca loo wada doorashada iyagoo guddiga doorashada Jubbaland ku eedeeyay inuu jeebka ku wato Axmed Madoobe oo musharax madaxweyne ah. mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynayaasha Jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya muhiim tahay inay soo farageliso doorashada Jubbaland iyo siday haatan wax ku socdaan oo loo bogeyn sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ciidanka ka madax bannaan Jubbaland gaar ahaan booliiska magaalada Kismaayo ay ilaaliyaan doorashada maadaama booliiska hadda jooga ay amar ka qaataan Axmed Madoobe oo laftiisa musharax madaxweyne ah ayuu yiri. madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku fikiraya in doorashadu uu ku soo baxo shakhsi aan ahayn Axmed Madoobe oo si weyn ula shaqeeya Villa Soomaaliya waxaana socdo qorshe ay madaxda hormuud ka yihiin oo ku wajahan doorashada. waxaa hadda hakad galay isdiiwaangelinta musharaxiinta inkastoo horey isu diiwaangeliyeen Axmed Madoobe iyo musharaxiin ku dhow haddana musharaxiinta isbedel doonka weli isma diiwaangelin waxayna ka hor yimaadeen qaabka haatan wax loo wado. ugu dambeyntiina madaxweyne Farmaajo ayaa la wareegay ciidan cusub oo tababar caalami ah ka helay dal ajnabi ah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dugsiga tababarka ee Turkistan uga qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay saraakiil xigeeno ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa kale oo munaasabada ka qayb galay gudoomiyaha golaha aqalka sare saraakiil kale oo la socotay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan saldhigga Turkiga oo ku leeyahay magaalada Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabada tababarka saraakiisha loogu soo xirayay ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada tababarka la siiyay in waxyaabihii la soo baray shacabka Soomaaliyeed ugu adeegaan. Waxa uu sheegay in saraakiishan looga baahan yahay inay noqdaan kuwo wadaniyiin oo aaminsan inay dalka leeyihiin isla markaana muhiim ay tahay inay dalkooda difaacaan una shaqeeyaan. waxaana dowladda Turkiga uga mahad celiyay sida ay u garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. waa dufcadii labaad oo saraakiisha heerkan ay ka qalin jibiyeen dugsiga tababarka ee Durkisom ee magaalada Muqdisho, waxaana xirada wali ka socdo tababar la siinayo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar channelkan, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan warka inuu halkan soo gelino. waana mahadsantihiin.